waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa xubnaha ka soo qayb galay oo aqbalay yeeritaanka kan inaynu halkan shirka kan sharafta leh isugu nimaadno. waa u mahadcelinaya. waxaan bogaadinayaa xafiiska abaabulay oo runtii sidan aad iyo aad aanu ugu qanacsanahay runtii aan u soo abaabulay. waan u mahadcelinayaa. intaa haddaan ka gudbo, waxaynu maanta isugu nimi shirka kan aynu isugu nimi ee ah sidii looga wada hadli lahaa nafaqadarrada ama sidii nafaqadarrada wax looga qaban lahaa. waxaan aad iyo aad ii farxad gelinaysa intaasoo maxay tahay mas-uuliyiin ah oo isugu timi. waxaan isleeyahay halkeedayba ku qabsoon tahay. wax ka qabashadii waa u dhantay, waayo intaasi waa wada mas-uuliyiin. waxay sii fiirgaraynaysaa in dee ka badan oo ama dalka intii joogtayba bay wixii hal ka soo baxa ay ku maaxayaan. anigu roolkaygu wuxuun ahaa inaan yarna quweeyo shirka, maxay ahaydtay wacyigelin, wixii technicality ah maxay ahaydtay ama wasiirka ayaa ka hadlay ama agaasimaha waaxdaas oo ninka maxamed baa ka hadlay runtii oo si fiican labaduba ay u sharxeen una daadejiyeen. marka anigu waxaan u malaynayaa roolkaygu waxuun ahaa furitaanka iyo mahadcelin iyo inaynu wixii halkaa ka soo baxa marka doodeennu ay soo dhammaato wixii ka soo baxa inaynu fulinno oo isla ogaanno oo ka ballan qaadno. waayo nafaqadarradu waa wax aynu wada ogsoonnahay. waa cudurrada dilaagaa bay ka mid tahay. carruurta Soomaaliya ama dunidaba dhibaatada ay ku hayso ama sida ay wax u dhinto waa la soconnaa. sidanuu sheegaya hadda wasiirku ka hadlayey, hooyooyinku iyaga qudhooday dee taabanaysaa. iyaga carruurtii maxay ahaydtay in wacyigelin la sameeyo, in wixii laga qabanayo oo nafaqada kor loogu qaadayo, nafaqadarrada lagula dagaalamayo, in iyada qudheeda wax laga qabto. waxaan marka bogaadinayaa runtii hadda inta aan hadda halka joogay xafiiska kan waxaa aad iyo aad uga soo qayb galay UNICEF oo wadda hawsha iyada ah. waxaa ku soo biiray WFP oo runtii aad iyo aad mashruuca kan Sun Movement runtii awoodda saaray. waxaan rajaynayaa in hay-adaha kale oo for example kuwa inala jooga iyo kuwa maqanba inay iyaga qudhooda xul iska saaraan oo wixii aanay hadal noqon iyo shirare ee wax ka qabashadeeda ay iyana ka soo qayb galaan oo xil weyn iska saaraan. Soomaaliya nafaqadarradu aad iyo aad bay ugu badan tahay. waanu la soconnaa. waxyaabihii hadda laga sheekeeyey baa keeni kara. wixii aynu ka qaban karraa waaba iska yar tahay, laakiin innaga dadaalka iyo wacyigelinta waa muhiima. waxay gelaysaa sector walba waa gelaysaa. quality controlka waa meelaha ugu badan ee waxyaabaha aynu doonayno inaynu maxay tahay isha ku hayno oo meel wasaaradda waliba ama qof waliba maxay tahay halkaa isaga ah
inay laga ilaaliyo loo baahan yahay. marka aad iyo aad baan wasaaradaha iyo hay-adaha ka soo qayb galay u bogaadinayaa. aad iyo aad baa ii farxad gelinaysaa maanta shirka kan aad iyo aadka u camiran waxqabashadiisuna inay camiraato oo muuqato ayaan rajaynayaa. waa codsiga waa fulinaynaa howlwadeennadu ay codsadeen oo yidhaaheen ilaa inta waxaan jecelahay in nala fadhiyo nala joogo haddii loo baahdo oo runtii inkastoona shirar lahaa waa joogayaana wixii ka soo baxa waa weyneynaynaa haddii alla yidhi maanta sida shirku u wen yahay oo qiimaha u leeyahaynu u qiimeynaynaa uma kala tegayno waana soo koobi doonaa howlwadeennada waana muhiimna waa wixii muhiimana waa ka soo qaadan doonaa runtii oo kolley waqtiyadu waa iska yaryahay waqtigu. marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waxaan ku soo gebagabaynayaa mahadcelin iyo salaan iyo wax ku oroo ka soo baxa shirkan iyo wixii ka soo baxo aynu follow up ku samayno oo fulinteeda la fuliyo. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.